Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Djibouti. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka gaaray dalka Djibouti. Booqashadan madaxweynaha ayaa salka ku haysa xiriirka labada waddan ee walaalaha iyo xoojinta la dagaalanka Al-shabaab sida ay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ay qortay. Waxaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu kulan la qaadan doono dhiggiisa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Kulanka u dhexeyn doona labada dhinac ayaa ah mid si gooni ah isha loogu hayo, maadaama khilaaf diblomaasiyadeed oo Djibouti kala dhexeeya Soomaaliya uu soo ifbaxay kadib markii bishii aynu soo dhaafnay uu madaxweyne Farmaajo booqasho ku qaadatay 3 maalmood uu ku tegay dalka Ereteriya, taasi oo noqotay tii ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago dalkaasi. Sidoo kale labada waddan ayaa kala saxiixday heshiisyo ay ugu muhiimsanaayeen isweydaarsiga safaaradaha labada waddan. Madaxweyne madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi ka sheegay in qaramada midoobay uu ka codsanayo ka qaadista xayiraadda saarnaa dalkaasi, iyadoo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo horey taasi mid la mid ah uu sameeyay. Safiirka Djibouti fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin hadalka madaxweynaha. Djibouti iyo Ereteriya ayaa waxaa ka dhexeeya khilaaf dhanka xuduudaha ah. Si kastaba, booqashada madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la odorasayaa inay soo afjartay madmadowga ka dhex jira labada dhinac.